السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا قالقة كسر هذا لكجرين امتحانها مادة Advanced Contact Lens. هادو إلى ما امتحان قادم دونا eyelid and contact lens مهم نوغوتاهي eyelid قف مركان وحيرين contact lens هادو إلى هذا waxyaabo badan aan ka hadli doonaa laakiin ugu horeyntii waxaa ka bilaabi doonaa anatomical shaqada structure ahaan anatomical waxa uu ka kooban yahay markii laga hadlayo eyelid laba nooc waa midna waa midka kore oo upper eyelid midna waa lower eyelid baarasha si guud labadaas nooc waa more mobile waa inta badan movement waxa sameeya lensiga qaybta kore waa waxa inta badan nuuxnuuxsada more ah soo kale content wuxuu ka kooban yahay tarsal blade haddaba maanta anatomicalka iyo physiological eyelidka bas waxaa ka hadli doonta maadada anatomical physiologicalka kaliya waxaan sameyn doonaa preface waxaan sameyn doonaa short notes yar xasuusin yar sameyn doonaa content wuxuu ka kooban yahay tarsal blade haddaba maanta tarsal blade waxa uu yahay horaan kaga soo hadalnay oo had waqti badan ku mulmeyn doona taas way muhiim u tahay marka anaga casharadan qaadanayno qofka casharada hore inuu wax ka fahansan yahay give wuxuu ka sameynayaa structural ahaan oo anatomical eyelid tarsal blade lower eyelid waa less movable inta badan eyelid wax nuuxnuuxsada inta badan kan kore waa kan hoose ma nuuxnuuxsada support wuxuu ka qayb qaataa lens position wuxuu ka qayb qaataa lens position la dhigaa ka qayb qaataa sidoo kale blinking movementiga mechanism blinking ka muhiim waa spray filmka iyo help wuxuu ka qayb qaataa lens repositionka lens position lagu sameynayo ayuu ka qayb qaataa rule of eyelid in contact lens marka laga hadlayo rule of eyelid contact lens wuxuu sameeyaa leeyahay position and stabilization marka laga hadlayo eyelid control ayuu ka qayb qaataa to centralization lens contact lensiga inuu centralka ayuu ka qayb qaataa sidoo kale upper lid especially effect wuxuu ka qayb qaadanaa superior rigid lensiga haddii RGB lens ay tahay oo hard lens ay tahay in superior ayuu muhiim u noogu yahay lid attach fitting lid eyelidka waxay attachment ku sameysaa fadhiisata fitting example tight haddii tahay lidka lensiga wuxuu noqonaa rid high ayuu noqonaa aad ugu badanaa haddii loose haddii lensiga uu yahay too much loose hadduu yahay lens maybe wuxuu noqonaa decentration oo centralka inuu kasoo bixin ayuu noqonaa sidoo kale markii laga soo tago lens positionska waxaa ku xigo lens movementiga lensiga dhaqdhaqaaqa uu sameynayo eyelidka muhiim u yahay blinkingka koos wuxuu sameynaa vertical lens sida qof markuu isha loo xiro contact lens mar walba waxaa la rabaa inuu blinking inuu sameeyo sidoo kale soft contact lens waxaa leeyahay blinking ama movementiga uu sameyn maayo soft contact lens oo 0.5 ilaa 1 mm halka RGB gan ay tahay rigid contact lens rigid gas permeability oo tahay 1 ilaa 2 mm too much movementiga discomfortable qofka dareema unstable vision kana unstable ma noqonaa laakiin too much little haddii tahay movementiga haddii yarta movement lensiga hypoxia dhacayso risk ayuu ugu jiraa tear film distribution waxaa leeyahay eyelid separate wuxuu ku sameeyaa over the lens important waxa uu tahay lubrication and oxygen transmission debris removing waxyaabahaas dhan tear filmka in oo qashin oo isha kasoo baxo oxygen transmissionka iyo lubrication waxa dhan ka qayb qaata lens remove and reposition eyelid wuxuu ka qayb qaataa help wuxuu ka caawiyaa recenter inuu ahaado display movementiga assistant wuxuu kale ka caawiyaa removing technique markii la sameynayo qofka markii loo xirayo centerka markii la dhigayo lensiga centerka markii la rabo in la dhigo sidoo kale markii laga saarayo eyelidka dhan muhiim ayuu noo yahay types of lens interaction of lens typeska noocyadana ka kooban tahay mid waxaa loo yaqaanaa lead attached fit RGB lens stay waxay sameynaysaa under upper eyelid move waxay ku dhaqaaqda with a movement blinking mar walba qofka blinking sameynayo muhiim waxa uu tahay better comfortable muhiim ayay u tahay sidoo kale establish vision stable ahaado muhiim ayuu noqonaa eyelidka interbulbar fittingka
marka la sameynayo labada balbalbarka interbalbar marka laga hadlayo lens set between the lids eyelids intuu dhaxeeyo ayuu lensiga fariistaa more export lens sidoo kale waxaa leeyahay lid control ayaa dhacay eyelid conditions waxaa affect gareeya contact lens waxaa waay tight lens commonly in young patient ilmaha yararka lensiga mar walba waxaa waay too tight ayuu ku yahay cause maxaa sababo lensiga ridgeska high waay hareeraha lensiga aad ayuu ridge u noqonaa difficulty interaction and remove mar walbana qofka in laga soo insertionka iyo removingka ilmaha inta badan ku arkaa because eyelidskooda aad ayuu yaryahay so can loose and flable siin waxaa lagu arkaa inta dadka oo waaweynka lagu arkaa why lens eyelidkooda mar walba wuxuu noqonaa uu jilcanaana aadoon u dheeraana sida ilmaha yararka camal eyelidka ma ah kuwaas wuxuu sameeyaa marka lens decentration lensing in decentration in noqon weyso eyelidka hoose inta badan wuxuu noqonaa soo adkaanaya ama buurinaya jilcanaya noqonaa buur stabilization dhacay tosiska dropping of eyelid maybe kuwaas wuxuu sameyn karaa leeyahay cover the lens in inuu daboolmo affected the vision entropia and ectropia eyelidka inuu gudaha iyo banaanka u baxsan yahay labadaba muhiim ah both effect interlens ayuu ka qayb qaadanaa clinical important practice marka laga hadlayo during waxaa leeyahay contact lens fittingka you must evaluation ku sameyso waa lens tension so lens position and blinking better saddexaas ugu muhiimsan marka laga hadlayo lens contact lens fittingka sidoo kale lens selection based of the eyelid marka laga hadlayo tight eyelid prefers waxaa ku sameysa RGB oo lens attachment ku sameysa too tight markay tahay too tight markay tahay RGB lens attachment oo sameeyna loose markuu yahay loose light markuu yahay eyelidka waxaa leeyahay preference inta badan RGB large wuxuu ku sameeyaa diameter of soft contact lensiga complicationska oo inta badan la xiriira dry lensiga iyo lens displacement iyo gate papillary conjunctiva RGB inta badan problemaas hadduu qofka isticmaalo complication badan ka dhalana eyelidka haduu problem uu leeyahay qofka haduu daraacayo qabo haddii eyelid lens displacement haduu leeyahay qofka haduu gate papillary conjunctiva oo ma taqaana conjunctiva papillary haduu ku leeyahay mechanical irrigation dhac xaaladahan dhan muhiim zaid ay noqotay blinking and contact lensiga blinking and contact lens marka laga hadlayo inta badan laba nooc oo kala qaadana normal blinking rate iyo reduced blinking oo dryness-ka blinking rate qofka waxaa leeyahay 12 ilaa 15 ilbiriqsi ayaa la rabaa inuu halkii minute inuu sameeyo with contact lens reduction of blinking hadduu qofka ama reduce ku dhaco dryness aa dhacay important waxay u tahay in student and computer userska inta badan lensigooda inda isku qabashadooda aad iyo aad u yaryahay eyelidka marka maanta waxaa leeyahay practical clinical eyelidka marka laga hadlayo always check waxay muhiim u tahay lid margin healthiga so called observation lagu sameeyo lens movement after blinking patientiga in la weydiiyo comfortability-ga inuu qori dareemayo examination of lens fitting TBU oo lens inuu daraaca qofka qabeenka laga sameeyo guud ahaan summary marka laga hadlayo eyelidska waa key control of contact lensiga waxa ugu badan control furaha control waxa contact lens badi oo lens positionka movement iyo comfortable upper eyelid oo majority role waxa ugu badan ka qayb qaata upper eyelid waa marka laga hadlayo muhiim inuu yahay because waxa nuuxsanaya inta badan movement ka sameynaya upper eyelid waxa leeyahay ani eyelid abnormality oo affect gareena lens successful kiisa ay affect gareena. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.